وزير ku-xigeenka dastuurka ee arrimaha dib u heshiisiinta ee dowladda ku meelgaarka ee Soomaaliya Mudane Cabdikariin Xaaji Cabdi Buux oo shir jiraayad ku qabtay magaalada Nairobi ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyay shirkii dhawaan ku soo gabagaboobay magaalada Garowe ee looga hadlay arrimaha dastuurka. wasiir ku-xigeenka ayaa waxa uu sheegay in shirkaasi uu ahaa mid aad u wanaagsan isla markaana ay ka soo baxeen go'aano dhowr ah oo ku aadan sidii dalka lagu sameyn lahaa dastuur cusub. wasiirka ayaa waxa uu ku tilmaamay dastuurka cusub ee dalka inuu fursad u yahay wadanka iyo Soomaalida oo idil isagoo ku booriyay dadka Soomaaliyeed inay ka qayb qaataan sidii dalka Soomaaliya loogu sameyn lahaa dastuur cusub. wasiir ku-xigeenka dastuurka ee arrimaha dib u heshiisiinta ee dowladda ku meelgaarka ee Soomaaliya Mudane Cabdikariin Xaaji Cabdi Buux oo ka hadlayay shirkii Garowe iyo waliba go'aanadii ka soo baxayna waxa uu yiri haddaan idin ka warramo qaabka shirka Garowe u dhacay runtii qaab aad u wanaagsan ayuu u dhacay. dad fara badan oo bulshada Soomaaliyeed qaybaha ay kala tahay ayaa yimid, dad aqoon la yimid, dad experts ay yimid, odayaal baa yimid, civil society baa yimid, qayb ka maqnayd ma jirto runtii. dadkaasi nagabi waa mas'uuliyadda saaran bay ahayd sababtoo ah 3 cisho oo hawl adag ayaa la gelayay. runtiina ma hadda ugu weyn waxa loo celinayaa maanta la ahay dadka reer Puntland soo abaabulay ee diyaariyay ee nabadgelyada xasiliyay ee intaasoo qof martigeliyay. alxamdulillah dadkaas ayaa ma hadda weyn leh. marka haddii aan shirka eego wuxuu ahaa shirku waa daba socday Garowe 1 ayuu daba socday. marka 3 xubnood uu shirkan ahaa Garowe 2 federaal horta waan nahay oo dawladda waa dawlad federaal transitional federal government federal lagama doodeen ma qaadana ismaan ma qaadano lagama doodeen. kaasi wuxuu ahaa mid isagu marka hore lagu heshiiyay Garowe 1 baa baasiyay. waxa laga doodayay oo la eegayay qaababka kala duwan ee federaalka qaabkee innaga inuu fiican xiriirka statiska federaalka soo bixi doona iyo dawladda dhexe ee federaalka sida uu wada shaqeynayaan. qaybtaas qayb bay ahayd. qaybta kale waxa ahayd qaabka dawladnimo ee la sameynayo. dawladda ma waxa laga dhigaa baarlamaanka, dawlad baarlamaanku xoog leeyahay oo marka baarlamaanku soo dooranaya madaxweynuhuna ceremonial uu ahaanayo oo awoodiisu xadidantu u joogaya astaanta dawladnimo u joogayo iyo ninka madaxda ka noqonaya prime ministerka oo golaha wasiirada madaxda u oo prime ministerka. marka prime ministerku waxa weeye madaxa dawladda. madaxweynuhuna wuxuu noqonayaa madaxa ma aragtay qaranka oo isaga national figure wuxuu u taagan yahay state-kiina kuwana wuxuu u taagan yihiin maamul. marka laba baarlamaankuna wuxuu u taagan yahay dawlad legislation ki sameynaysa mashruuc sameynay la xisaabtamay dawladda marba la xisaabtamay dawladda conference weydiisanayso daba goraya gudiyadiisa kala duwan. marka horta waa 3 arrimood baa laga doodayay waxaana la isku raacay parliamentarianka inuu noqdo parliamentarian system. sidoo kalena wasiirka mar uu ka hadlayay qodobo shaki badan gelinaya shacabka Soomaaliyeed ee ah in shakhsiga ka mid noqonaya baarlamaanka iyo hoggaanka dalka aan loo fiirin diintiisa balse lagu soo xulanayo aqoontiisa ayaa waxa uu yiri inuu qofku muslim yahay maana ragaan waxa ku jira oo lagu heshiiyay inuu muslimka ixtiraamo diinta islaamka ixtiraamo. waayo haddii la yiraahdo muslim inuu yahay qof aan muslim ahayn oo Soomaaliya حقوق له وده كانوا خطابات إنه ضد كريستيان هدو هاي هدو واحد عليه هاي دينته هو سبب حقيقي لكن وصومالي هلا دينا وتلا صومالي مركن نكى كومبليت لما ورن كرام هذا مثل هاي صومالي متي تلو كملي تحنا كملي لكن وإنه سفها وناكسون وردان إنه ندلين إنه لنا واحدين إنه لنا وحنا هاي إنه حقوق لسانك إنه برشلة ما راح كل حليه هاي إنه وحول دولة دينتي إسلام كان احترامي ما دامت هاي دينتي وذا كان هاي
marka waxa laga yaabaa arrintaas oo kale inaynan hataa 1% ama percentage ba ma gali karto tirada Soomaalida aan muslimka ahayn wax percentage aan gali karo dastuurkan cusub ee loo sameeyo dalka ayaa ah hadda mid qabyo qoraaleed ah iyadoo la filayo in bisha Abriil ansixiyaan ilaa iyo 1,000 qof oo ka kala socda qaybaha kala duwan ee bulshada isla markaana lagu soo xuli doono qaabka wad qaybsiga Soomaalida ee 4.5 sida uu sheegay wasiir ku-xigeenka dastuurka iyo arrimaha dib u heshiisiinta dowladda ku meel gaarka ee Soomaaliya Cabdikariin Xuseen Gutaale S24 TV magaalada Nairobi